السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين نمو وناكسنا خيارتنا داواني ساي ميلك استود كتوكتان دافع عالم كسو هذا يوتيوب كينا بدي بري channel ورقة عاوانا دين هاي نوحا ودورون مريكا يوروب يا أفريقيا ورقة صومالي دا هدان دي كو ريو ورقة مريكا hogaamiyaasha kiniisadda Kooteliga ayaa ka digay saameynta jarista gargaarka dibadda ee Mareykanka iyagoo ku baaqay midnimo iyo taageero loola yeesho dalalka Afrika. Sidoo kale, wararka ka imaanaya isla Mareykanka, dukumentiyo cusub oo la xiriira Jafar Epstein ayaa iftiimiyay dadaalo la sheegay in lagu sameynayay siyaasadda Yurub, arrintan oo dood ka dhalisay gudaha siyaasadda Mareykanka. Sidoo kale, shirkadda tamarta dowladda Turkiga ee TPAO ayaa maanta heshiis is-afgarad la saxeexatay shirkadda tamarta Mareykanka ee Chevron si ay wadajir ugu sahamiyaan uguna soo saaraan shidaal iyo gaas dabiici ah. Arrintan waxaa shaaciyay wasiirka tamarta Turkiga Alpizan Baryan. Heshiiskan ayaa yimid saacado kadib markii shirkadda Chevron oo ka mid ah shirkadaha ugu weyn caalamka ee sahaminta iyo soo saarista shidaalka iyo gaaska ay heshiis hordhac la gashay dowladda Suuriya. Sidoo kale, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanay doonayn in Mareykanku weerar toos ah ku qaado Iran, beddelkeedana ay door bidayaan wadahadallo iyo gorgortan. Aragtidan ayaa muujinaysa in Mareykanku rabo inuu ka fogaado khilaaf militari, taasoo isla Mareykanka wadahadalku u arko fursad istiraatiiji ah. Mareykanku waxa uu u muuqdaa mid doonaya inuu wiiqo awoodda Iran ee Bariga Dhexe, isla markaana wadahadallada dhowaan la filayo lagaga takhaluso hubka ay Iran haysato oo ay ka mid yihiin hubka nukliyeerka iyo gantaalada balastiga ah. Sidoo kale, wararka ka imaanaya Yurub, Bangiga Dhexe ee Yurub ayaa go'aansaday inuusan kordhin ama dhimin dulsaarka iyadoo dhaqaaluhu muujiyay adkaysi. Sidoo kale, garoomada diyaaradaha Yurub ayaa ka digay qalalaase safar xagaaga marka si buuxda loo bilaabo nidaamka biometric-ka xuduudaha Inter-Exit System. Sidoo kale, qaar ka mid ah dekedaha Yurub ayaa la xidhay toddobaadkan sababo la xiriira cimilo daran iyo saadka ganacsiga. Sidoo kale, wararka ka imaanaya Afrika, qorshe caalami ah ayaa la diyaarinayaa in ka badan 100 doonyood oo gargaar u qaada Gaza bisha Maarso, iyadoo dalal Afrika iyo Bariga Dhexe ay ku lug leeyihiin. Sidoo kale, warbixin dhaqaale iyo ganacsi oo ku saabsan Bariga Dhexe iyo Afrika ayaa muujisay koboc iyo caqabado dhaqaale oo isku mar socda. Sidoo kale, Itoobiya iyo Bangiga Maalgashiga Yurub ayaa kala saxiixday lacag dhan 110 milyan oo euro, taasoo loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha reer miyiga. Ujeeddada lacagtani waa in lagu caawiyo muwaadiniinta reer miyiga ah ee ku nool Itoobiya si loogu abuuro fursado dhaqaale oo ay ku horumariyaan noloshooda. Sidoo kale, wararka ka imaanaya Soomaaliya, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegay in taageerada militari ee Turkiga ay gaadhay heer sare, gaar ahaan dagaalka ka dhan ah khawaarijta. Sidoo kale, hogaamiyaasha xuquuqda aadamaha Soomaaliya ayaa Brussels ku yeeshay kulan ku saabsan nabadda iyo wada shaqaynta. Sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayaa ogolaatay heshiisyo badeed iskaashi leh Turkiga si loo horumariyo dekedda iyo gaadiidka badda. Turkiga oo ah ninka iskaba haysta dekedda Soomaaliya iyo airport-ka oo iska daldasha kheyraadkooda ayaa maantana saxiix kale loogu sii daray. Sidoo kale, madaxweynaha ayaa amar ku bixiyay dardargelinta gurmad abaarta iyo taageerada dadka ay saamaysay. Sidoo kale, wasiirka difaaca Soomaaliya ayaa beeniyay hadal hore uga soo yeedhay oo ku saabsanaa Soomaaliya ayaa leh F-16 isagoo sheegay inay Turkigu leeyihiin.
diyaaradahan F-16 waxaa leh walaalaheen Turkiga oo na taageera. hadalkaygii hore si khaldan ayaa loo fahmay. waxaa odhanaya mustarfiqi waxaan idin haynaa isagoo markii horena hadlayo ku faanaya markan dambana balsiyaradaa fiidogoo kane waa dowladda walaalaheena Turkiga ayaa leh qalad baa loo fahmay shalay kelimad yar oo aan idhi oo mikrofoonka xaggiisa hadalladii qaar kala gooyay dowladdaas leh F-16 oo ciidanka xoogga dalka loo keenay yaa murti ugu soo degtay ugu soo maaxad dadka gabyana ma yahay gabaygana ma xasuusto inta badan waxaan idhi F-16 fariin ay wadaan idinka gaarsiine waa nimankii khawaarijta. sidoo kale wararka ka imaanaya Baydhabo dagaal ayaa ka socda magaalada Baydhabo wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo ciidamo la sheegay inay taageersan yihiin wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya oo la yiraahdo Xasan Eelay. ciidamada uu watay iyo kuwa lafta gareen ayaa halkaa isku galay waxaana la sheegay in khasaaro weyn halkaa ka dhacay dhimasho dhaawac waa maalintii labaad. ilaahay waxaan ugu baryaynaa ilaahay kala qaboojiyo. sidoo kale wararka ka imaanaya Somaliland William F. Wilson madaxa hay'adda Atlantic Council ee Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe iyo Afrika ayaa la kulmay madaxweynaha Somaliland. waxa uu yidhi anigoo hore ugu soo shaqeeyay siyaasadaha Mareykanka la dagaalanka argagixisada CT ee Soomaaliya waxay ahayd arrin xiiso leh inaan la kulmo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi intii lagu guda jiray munaasabadda World Government Summit. waxaana ka wada hadalnay aqoonsiga dhowaan ay Israa'iil siisay Somaliland iyo suurtagalnimada in madaxweyne Trump uu tallaabo la mid ah qaado sanadaha soo socda. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ahna kusimaha madaxweynaha Maxamed Cali Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta safar shaqo ugu baxay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa galabta soo xidhay tartanka kubadda cagta ee koobka horyaalada Somaliland ee ka socda magaalada Berbera. sidoo kale wafdi madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa soo dhaweyn loogu sameeyay deegaanada u dhaxeeya Hargeysa iyo Berbera. wararku waxaan idin haynaa waa naga intaa tan iyo intaan dib u kulmayno habeenimo wanaagsan. guys subscribe share comment like guys bariyaan baalka meedaan taamanba kor u qaada waa salaamaynaa habeen wanaagsan.